السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له الصوماليات إي ورا مسيدين الحمد لله أنا جنا وفي عنها إلى بام هذا إسكالة أنا ذا فيديو هذا سوكن سعودية مركلا أنا وأنا بتخبنا إذن كان سيداس إيه رجينا and we got to so دافع وحما سوق لنا بيس أيامها إن شاء الله وأنا ذا فيديو هذا إني وضع فيديو وين أيوة كدويني فيديو يا شكلا فيديوgan wuxuu ka hadli doonaa haduu ilaahay yiraa ilmaha iskuulka aadaan ayuu ka hadli doonaa insha Allah waxyaabaha ayaan rabaa walaalihii ugu faa'iideeyo hadii aad joogtid wadan qurba ah my experience kayga insha Allah waxyaabaha aan arkay iyo waxyaabaha socda baan rabaa insha Allah inaad walaalihiina iga faa'iideyn haduu ilaahay yiraa waxaa jira ilmaha iskuulka aada oo yar like schoolka dhaxa oo yani schoolka oo yani kindergarten iyo second grade third grade iyo fifth grade ila 5th grade 6th grade ilmahaas inkastoo kuwa high schoolka xataa middle schoolkan aan ka hadli doono insha Allah laakiin kuwa yar ayaa insha Allah ka hadli doona kuwaasi iskuulka ilmaha waxay kala kulmaan bullying oo aad iyo aad u weyn ay kala kulmaan marka maamooyinka badanaana ma ku baraarugsana bullyingkaas oo cunugaasi waxaa dhici karta cunugaada in aad soo qaaday oo iskuulka ka soo qaaday oo cunuga xanaaqsan yahay oo cunuga markaas saa ula hadashid oo farka tuuraa haddaa aragtid cunugaas hoos ahaan ula hadal ilmaha marka iskuulka laga soo qaado aad guriga keentid haduu uu xanaaqsan yahay cunugaas that moment waxba ha weydiinin because cunugan maanta dhan bullying ku soo socday 8 hour ayuu ka maqan yahay cunugaas 8 hour kaas buu any minute oo qofkaas bullying oo la kulmaayay marka wuu asaga dhan waa buuxaa waa limit full marka cunugu marka iskuulka ka soo qaaday dad aragtid inuu xanaaqsan yahay hakulu ordino ha weydiinin maxaa ku helay maxaa kugu dhacay lama weydii ilmaha waqtigaas oo kulul yahay oo wali waxba u cunin waxaa jira cunug yar oo aniga markaa hadda way weynta maasha Allah middle school iyo hadda dhigataa oo gabar ah I think markaas inay aheedaan u maleeyaa third grade or second grade I'm not sure inay aheed hadda 7th grade waa ba iskuulkaas kaligeed ayaa xijaab ka xiran jirtay iskuulka the whole school gabadheeda yar only ayaa xijaab ka xiran jirtay marka hadda ka hor wuxuu soo siiyay macallin ilaa hadda guriga uu ku dhigsan yahay halkaas wuxuu soo siiyay calendarkaas waxaa ku qoran wuxuuna u soo siiyay reason abay ahayd oo wuxuu u soo siiyay waa reason oo markaa asaga qaas u ahaanaya u soo siiyay calendarkaas waxaa ku qoran be yourself ku qoran be yourself marka calendarkaas waxaa ku qoran be yourself waxaana sawirro ku jira waxaana sawirro ah yaa yaqaana waxaan dhahnaa aniga dameer farow baan dhahnaa Englishkana wuxuu dhahaa zebra inaad calendarkaas aragteen waa dhici kartaa sometimes meel aad ku aragteen waa all wada zebra hal waxaa ku jira jiraafkana waxaa waaye gariga dheer waa taqaaniin baalka ay xawayaanka oo gariga la dhahayo oo dheer oo quruxda badan very beautiful ka garigaas ayaa ku jira waa asaga keli baa ka dhex taagan wuxuu ka dhex taagan yahay dameer farowgaasayta anaga dameer farow baan dhahnaa umaleeya that's what I think Soomaali in lagu yeero laakiin English waxay dhahaan zebra all waa wada zebra waa hal gari oo jiraaf ah baa zebragi ku dhex taagan dhexdii buu asaga taagan yahay geesaskana waxa uu wareegsan zebra
korna waxaa ugu qoran be yourself. That means wuxuu u siiyey gabadhayda yar macalinka wuxuu u siiyey yacni dadkan oo kulli adiga lamad mateed, adiga waxaa tahay qof kaligiis ah oo adiga wax kugu nooc ah iskoolkan ma dhigto, laakiin waxaan kaa rabaa way yar tahay. I think waxaan idin dhahay waa second grade oo third grade aan ku wareersana waxay ahayd. I'm very sure laakiin waxaan ma hubin, laakiin waxaan u malay inay third grade ahayd aan u malaya. Marka wuxuu dhahay maadaama aad dadkan iskoolka joogaan balaas ilmaha iyo balaas macallimiinta oo adiga aad isku mid ahayn oo different ka tahay, waayo adigu waxaad xirantaa xijaab, waxaad gabar islaam ah. dadkan kale xijaab ma xiran, you are the only person oo cunug yar oo xijaab xiran. marka wuxuu ka wadaa be yourself waxay tahay waxaa adiga yacni qof yacni confident laha oo waxaa be yourself yacni waxba ha ka walbahan qof adiga yacni qof walba wuu fahmi karaa adiga be yourself. just confident si waa naftaada yacni qof kale ha ka walbahan cabsi has yaa dareemin waxba ha dareemin yacni qof yacni normal iska dhig maadaama tahay kaligaa haddana be strong. waa ii keenta ilaa hadda wuxuu ku dhigsan yahay derbigu igu dhigsan yahay, and that makes sense. macalinka wuxuu u keenay because wuu arkay. I think macalin gym inuu ahay miya, I don't know. waan weydiiyey hooyo macalin ku sii way ii sheegtay. I think gymka inuu ahay baan u malayaa. marka ninkaasi waa nin aqli badan ayuu ahaa, wuu arkay. gabadhayda marka waxaa ku socday bulli baa ku socday. marka bulinkiyaa bulin garayna laba gabdhood oo mataana ah oo galaaska bulinku meel walba horta ugu socday, laakiin waxaa ugu darnaay laba gabdhood oo galaaska ay isla dhigtaan. laba gabdhood ee galaaska isla dhigtaan baa bulinku wadeen. bulin noocee lagu waday ina la caayo iyo inuu waxyaabahaas sheekada way dhaaftay. caytan sheekadaas way dhaaftay. maqas baa la soo qaatay. maqaskibaa every single day 5 days kay baxday. 5 dhara u kala geliyay oo kala nooc ah iyo xijaabkooda ismaajo garaynaya. 5 days ki ma aaminaysiin hooyooyinkii dhegaysanaya dhagihiina si fiican ii furo. 5 days kaasayto goonaha haddii aad iskaat hadduu ahaada iyo hadduu cambuur ahaaba goonadana waa la jiraayay dhag waa la jeexaayay, xijaabkana waa la jeexaayay. waxaa jirta marka guriga markay saa usoo galaan ee dharkii ay wateen waxaa jira marka caagir aan halkaa u dhigayo aan ku rido dharka wasaqda ah. dharkii wasaqda halkaas ay lagu ridaa marka oo iskuulka loo qaato one day haddii iskoolka loo qaato halkaas lagu ridaa. dharkan waa dhaqataan waay. waxaa dhacday marka 5 beri maqas ayaa lagu soo jaray. inta dharay qaadatay waa goona ahaada ama cabuur ha ahaada dhagaysta iyo balaas xijaabki ay xireed maqasaa lagu soo jaray. 5 beri maqaska ku socdana iimay sheegin. intay ii imaatay imay dhihin hooyo waxaas igu socdo waxaas baa lagu sameynoo imay tusinin. anigana I don't have any clue. wax aan ku ogahay ma jirto. marka hadda waxaan videoga idinku soo diyaariyey kuwa anoo kale ayaa jira xilligaas aan ahaa. hadda different ayaan ka ahayd. xilligaas waxaan yeelis experience badan maan lahayn. cunugteyda labaad ayay ahayd. experience badan maan lahayn. school experience badan kamaan lahayn. wax badan oo hadda sida hadda u fahansanan umaan fahansanin. marka hadda waxaan rabaa inaan gabdhaha yaryar ama yacni waxa hadda experience aan u lahayn inaan u faa'iideeyo. waxaa dhacday marka anigu waxaan ahay markuu dhar kala dhaqaaya baan fiiriyaa. dharka cunug kasta oo cunuga siibo dharkan waa kala bixiyaa. waan fiiriyaa marka jeebashaan fiiriyaa. dharkii baan fiiriyaa. dharka anoo fiirinin kuma ridi laandariga. waa mid walba inaan gooni u jagaray. waana wax aad iyo aad muhiim u ah gabar kasta in iga faa'iido. muhiim waa inaad dharka cunugaada u xiraa markaad dhaqaysid in aad jagaraysid is good.
waxaa dhacday darkii gabadhaydii xijaabkan soo qaada waa jiran yahay, kii kalaan soo qaada ee la xirata waa jiran yahay, kii kalaan soo qaado shantii maalinay baxday 5 dhar oo kala nooc ayay xiratay oo xijaabkiisii wato, intaba waa jiran yahay. markaan arkay dharkii oo jaran maxaa dhacay waay marka, maxaan sameeyey, ma qayliyey, ma ooyey, maxaan sameeyey waay. waa wax xanuun badan waay wallah, it's very very painful waay guys, waa wax aad iyo aad u xanuun badan waay. marka qaybta waxaan sameeyey ayaa idiin sheegi doonaa, part 1 aan ka dhigi doonaa iyo part 2 aan kala dhigi doonaa, way dheerta qasadaanayta. waxaan rabaa qasadaan la soco, qaybtan yaryar hadda bulinka ayaan ka hadli doonaa, waxaan ku xujin doonaa insha allahu ilmaha waaweyn ayagana wax ay rabaan, iyo ilmaha markay soo waweynaadaan waxyaabaha aan mataqaana ay caawiye, waxyaabaha ay u baahan yihiin cunugaada markuu tiin noqdo oo high school insha allah ka hadli doonaa ayagana. high schoolka ilmaha waxay u baahan yihiin ayaa insha allah idin sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraa. marka waxaan rabaa inaad subscribe-ka iga iloobin, like-ka iga iloobin, share-ka iga iloobin, free so ma aha like insha allah iyo share-ka iyo subscribe-ka soolkaada ka shaqaysii, lacag kaama joogo, waa just free. ku shub like hadduu ilaahay yiraa. khayr badan allah ku siiyo, waxyaabo badan waad iga faa'iidi doontaa insha allah. ma experience-kan marka aan koodi maana qabin aan hadda qabo, marka adiga iga faa'iid insha allah. qof walbaba experience-ka maalin unbuu yeeshtaa leh, sidaad dhagahaada kor ugu qaadidood ilmahaada u fahantido oo du ogeyd iskuulka waxa ka socdo insha allah. ilmaha keli ma bulugareen, ilmaha macalimiinta xataa way bulugarayaan, even macalinka wuu bulugarayaa. marka la soco insha allah qaybtaani waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaa hadduu ilaahay yiraa. intaas ayaan idinka tegin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.